فيلم waxaa lagu tarjumay Astaan Films Muqdisho. سيادة هل مد مسور تقريسو تاسو لما اللي باح waxa lagu yiri jiray rido waxay ahaataba asaga wuxuu ahaa qofka ganacsada gabdhaha jirkooda wuxuu u dhoofi jiray dalka dibadiisa suuqyo kala duwan oo u furay gabdhaha oo ku iibiyo waa nin aad iyo aad u xun suuqas la furo dhacdo aad iyo aad u weyn ayay ahayd radaana ninkaas ayada ayaa dishay عادل waxay ahayd qof nafsadeeda hortay oo maxaad ilaadaa adig walaashiis ayuu gatay may sidaas ma taxsiin kortaag asiga ayaa meesha soo dhax galay wuxuu badbaadiyay Caadla radawaan maxkamadda ma iskaga celin weysayna ma cadeen ayay ku weysay ayada taxsiin kortaag dambiga waxa geystay Caadla asagana dambiga qof kale ayuu dusha ka saaray sidaas ayuu Caadla ku soo badbaadiyay dambiilahan waa Caadla intaas oo toor ku noqday arintan waa sidaas كرداد وو إمادة يسقى وقدام بنتي فيلم كان waxaa lagu tarjumay Astaan Films Muqdisho jaakada aniga qabo kuleelkeeda
ma ka heshayna sidaan jidka u soo gooyay ereygan ku dhaho maalin walba laba beri ayay kuu qaadataa adiga aniga keligay halkan ma seexan karo soo kuma dhihinna aniga riyo xun ayaa arkay sidaas awgeed ayaan u seexan waayay hadda aniga ayaa ku imaaday adiga miyaa halkan kaaga tegi karaa ha cidloonin aniga ayaa kula joogo ii naso intaan kula joogo aniga riyadaad aragtoo dhan cabsideeda aniga ayaa kaa baabi'inayo kordaag ayaa gadaashaada taagan bohol weyn ayaa kaa dambaysa adiga sidaan ha samaynin waan ku baryayaa caadle hay dilin waan ku baryaaya aniga walaalkaa ayaan ahay waan ku baryaa hay dilin ii naxariis ayaan ku dhahay waan ku baryaa hay dilin asxaan ii sameeya aniga qaladkaa ma gelin iska jira dad u naxariisato dadka ayuu nafta u keenay siiba gabdhaha waan ku baryayaa hay dilin qaladkaa ma gelin aniga asxaan ha u samaynin dil ayaan ku dhahay maya sidaas ha yeelin beella waay way ugu filan tahay hadda walaalka kale ayaa joogo kaale ii dhiib gacantaada ha samayni sidaas ii dhiib hubka waxba ha cabsanay ii dhiib adiga waan guulaysanay hadda kadib waxaad noqonaysaa qof hora adiga ii jeefa adiga aniga ayaa kula joogo wax dhibaataa ma arkaysid filimkan waxa lagu tarjumay habar yar ma arki karnaa gabadha aroosadana haa waad arki kartaa kaala gabadheeda say u qurux badnaata soo arag macaanto sohaan see tahay yaqaan adiga gabadheeda isdaji meel dheera saarantahay maxaa kugu dhacayna aniga abal waa cabsanayo sohaan laakiin had dartan waa faraxsanaha ku dhaca markaa ii imaaday macaanta aad ayaad u qurux badan tahay adiga aad ayaad ugu labisteen aniga waan faraxsanahay laakiin farxaddan mid isbuuc ku kooban oo keliya waaye insha allah adiga u qurux badnaanaysid haa aniga walaashay riyadeeda aan ku riyoonayaad ii rumaysay adiga ma awoodaa keligaa inaad degtid haa hadday dhamaato waan degayaa gabadheeda adiga maxaa kugu dhacay cabuurka ama wax ku gaarsiiyaane hooy aniga boodboodkaana farxadda ayaa igu kaliftay adinka marka waxba ha iska lifin waa inaa iska baxaan saaxiibtay soohan ay la musalsal joogayso kale ku xiisi geliya waa run waxaad aniga ka daawan kartaa adiga barashadaada waan ku faraxsanaa marka lagu aroosayan ani iimooya aniga 5 maalmood ayaa ii dhiman aad ayaan u faraxsanaa waan faraxsanaa mana ilowdaa soohan adiga maxaad ku hadlaysaa aniga meel 5 daqiiqo ugu jirta ayaan dagooyaa teeda kale adiga jeesoor xiriirkiisa ma goyn kartid guriga aan deganahay ayaa lagu soo guurinayaa maxaa samayseen istaanbul ma ku wada kulanteen wayahaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafayaa wayahaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafayaa wasanu bariyo malmihii wacnaa way soo sodaan 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 wasanu gurigan waxyaabo badan ayaa laga helaa soo maahan aniga waan kaa tagayaa laakiinse waxaan ku faraxsanahay wiilka gurigan ku soo biiri doona balse waxaan rajaynayaa in hooyadiis iyo abiis uu la barbaaro waan rajaynayaa midaas insha allah aamiin jeesuura ku soo wacay wallaahi jeesuur waay waad maasan tahay aniga waxaan arkaa nin xun inaad ahayn adiga weligaa hadalkayga waxaad fahantaa muddo kadib filimkan waxa lagu tarjumay waan astaan sugaynaa films xilliga noqotaba muqdisho laba wada jirkiyo waxaa dila kalgacalka waan toobayo waxintii adduun laba weli ka maran caadla hoteelka way ka soo baxsatay weliba 2 jeer ayay ka soo baxsatay waxay saldhig ku dacweystay ninkii maamulka ahaa
wax walba adiga aad ii sheegtaan aniga wax badan ayaan ka fahmay ra'yigayga aniga waxay rabtaa taxsiim arrintan argoosi in uu ka wato runaantii anagana waddadeena waan kusii socon karnaa adiga maxaad ka leedahay walaal rafiiq anaga taxsiin korotaag sidaan xabsi ma ku geyn karnaa ii sheeg midaas dilkii aabbayna loo geystina ma caddayn karnaa annaga hal arrin ayaan ku soo caddayn karnaa haddii aan dhaw xasan kaara xasan ogle ayaan ahay waxyaabay intaan aan soo wadna ayaa meeshaas ku baaba'ayo aniga waxaan rabaa taxsiin dembiyada oo gala inuu asaga xabsi ku mutaysto raxfad wuxuu ahaa sargaal xog walbana wuu hayay xataa guri walba ha ahaato 6 bil ka hor ayaa taxsiin sirteeda aan u sheegtay sawiradeeda ayuu xaday gurigayga ayuu gubay dabka asaga oo shida hooyadeeda ayaa ku dhimatay aabbahaygana wuu isdilay rafaad taliyaha ayaa kuu yeeraya adiga igraan loqo taliyaha iyo wacaya albaabka xeer maxaa rabtaa inaa caddays adiga iska sii daa ninkaas taliya ninkan xaqiisa ayuu u doodaa sababtoo xaq ayaa laga galay kortaag ninka daadaas waxa la kulmaa ma ogta adiga taliya arrinta waa arrin dil ah adiga mid ogow ninka haddaa iska sii day weyso naftaada inay halis la kulmayso biyo intaysan kusoo gaarin ayaa layska muusaa mideeda kale ninkaas waa nin hati leh aad ku soo oogayso dembiga nafsadeenna anaga ayaa mas-uul ka ah qalad yar haddii aan galno waxaa laga yaabaa nafsadeen inay saamayn ku yeelato run ahaantii aniga ma ahi qof ilaabi doona taxsiin korotaag xasan kaara xasan oglo gaarigiisa waaye waxay ka soo dhacday buur aad iyo aad u weyn waxayna noqotay wax aad u burburay burbur weyn oo geystay waxay leedahay qof inuu isku filimkan waxa lagu laga yaabaa ninka soo gaariga wada inuu wadna istaago muqdisho qoraalkan aad u jeedid waa meesha shilka ka dhacay og wax kale oo faahfaahin oo aniga aan ugu jeedo ma jiraan shilkan dhacay xaguu ka dhacana shilkan dhacay iyo dhibkan dhacay ma isleeyihiinna ii sheeg wax shaqo isku leeyihiin ma jiraan baawur bas ayuu ahaa waa wax banaanka ka dhacay isla habeenkaas may dhacdana habeen aad u xunay ahayd habeenkaas marisohaan wax walbay ku dhammaadaan mal hadda wax kale oo adi aad raadinays maa jirane waxaan kuu rajaynayaa shaqo wacan mac salaama mac saruura halow mudane wax walba ayaday u baahneed way heshay iyada aad ay u faraxsan tahay faraxsan tahay haa si weyn ayay u faraxsan tahay runtii aniga imaana qofka u mahadcelina aniga ka saayo mac salaama mac salaama walaashiid adigii aabbo inaad murugtiin maba ahanbo runtii aniga aad baan kuu jeclahay musalsalkan iyo musalsal kaloo ku xiisa geliya waxaad ka daawan kartaan www.astanafilms.com haddana sakiirada ma dil u adeegsanaysaa aniga waxaan ku dhahay inay daadaansanna kuu roon
taxsiin korodaak hadda waa ay ku dhammaatay boorsamintada halkan ayay ku xiran tahay dadka hadda waxay arkayaan wejigaaga dhabtaa wuxuu uu yahay gabadheeda agteeda imaaw waxooshkaas agtiisa ka soo tag adiga iska jir haddaa ka cabsatidaan ku dhah warkiisa iska dhaaf kaale saalax meedkan meesha ka wareeji filimkan waxaa lagu tarjumay astaan filmis muqdisho okay wax walba way dhammaadeen xabiibti kulligeennaba waan badbaadnay shireen waa lagu imaaday shireen sideetiin asxaabey waan fiicanahay waxaan idin baryaa qof cusub hana idhihina lama filaan ayaad igaga dhigtay okay boqoraddeeda hadda meeshaan rabna waan imaanay garab ma ku siiyaa gacantaada ii dhiib musalsalkan iyo musalsal kaloo ku xiisogeliya waxaad ka daawan kartaan www astanfilms.com beelo oo meel fiican halkan fiiri fiiri dhinacaan soo fiiri duurkan oo kale adi sooma jeclin ii sheeg gurigaana bal ila fiiri kaas ma jirta gurigaas adiga ayaa iska leh wax walbo halkan yaalana adiga ayaa iska leh way qurux badan tahay waa door aad u qurux badan waa door aad iyo aad u qurux badan dadkaana waa saaxiibadeeda ma ku baraa iyaga ayaa xili walba garab ku sii doono soo dhawow marwo shiriin waa gabadha adiga raashinkaa ka fikir leed sheekada duurka ku saabsan iyada kaaga sheekaynayso kamaal soo dhawow marwo waa qofkii ilaalin lahaa duurkan iyo weliba adiga iyo gurigiina waa wiil aad u qurux badan mahadsanid asxaabey nakeena gacantaada ii dhiibal meeshaan gordha waa la salaaxay inay kula dugtaa laga yaabaa tartiib soo soco daawad ma cuntay waan cunay ayaan ku dhahay saaka cunay hadda ma cunin xal ayaad cuntay hadda cun daawada waa waqtigeeda waxaan ku dhahay waan cunayno marwo foogaan waxaan ogaaday buskudka jilicsan inaad ka heshay sidaas darteed ayaan kugu sameeyey ku soo dhawow xalaawadeeda filimkan waxaa lagu tarjumay
astaan films magacay ku sheegayso muqdisho waa buskud baaris loo keeni jiray iyada haa xalaawadeedii waa buskud aad u fiican runtii marka hore daawada qaadaho haddaan ogahay buskudka inaad saa un jeceshahay kal iyo laab ayaan kugu soo diyaarin lahaa caafimaad ku cun ma ka hesha hooyo ayada maskaxda ayay leedahay balse waa naag fiican kamaalna ma rabto inuu agteeda ka dheeraado runtii anigana waxaan dhahay shaqo ayaa ii taalo waa arrin xun ilowshaha iyada ee iloobaysa waxaa keenaysa da'deeda oo weynaatay mar walba wax fiican haddii loo sheego waxaa macquul wixii hore in iska iloodo waa siduu jeesuur iigu sheegay taas waa mid xun balse ayada waxay noqotay waayeel adiga goormee barashadeeda u imaanaysaan ma aqaan laakiin markaan toobka kaasoo doonaa ayaan isbaranaynaa labadeenna maya bis iga dhe anigu waa faraxsanahay arooskayga 4 beriyaa ka hartay kaamirada arooska lagu duubi lahaa waa inaad diyaarin inaan fadhino maba noo yaalo baabalah walaal aniga kuraasmanka oo dhan oo loo fadhiisanaya waan soo diyaariyey teeda kale lacagtaan ku tashanaya bangigan waa laga xayiray lacagtaad adi isiisane amaanta isticmaaloyaa hagaag hadda ma waxaan sugnaa xalwada arooskiisa keliya waxaa dhiman dadka inay imaadaan waxay cunaan ani shareene mar wal farxadaan ku noolaanaynaa musalsalkan iyo musalsal kale ku xiisageliya waxaad ka daawan kartaan adiga hadda waad faraxsantahay soomaan haa si fiican u faraxsanahay films.com anaga arooskeen si fiican u dhacaa laakiin waxaan ka cabsanaa inay ilin asiibto anaga farxaddeena cidaan kala gambanayna ma jirto waan muujinaynaa farxaddeena wax walbay toosayaan walaal wax ayaan rabaa inaan ku sheego mana rabo inaan adigu murjiyo maxaa waa ii sheeg anigoo aroos ah haddana ma faraxsani maxaa kugu dhacay ii sheeg haa haween hore markaan istanbul aan aaday runtii waxaa imaaday aabba saalax indhahayga shante oo alaab qaatay anigana waxaan ku dhahay meeshan lama ogol in alaab laga qaato wuxuu igu dhahay aniga waxaa isoo amray taxsiin kordaad waxbay raadinaya soomaan adiga ma xanaaqdin ma xanaaqin laakiin waan xanaaqi doonaa fiiri waa markii labaad markii saddexaadna iyaga aan daali doonaa aniga midaasaan ku ballan qaadaya walaal shiriin haddii maqash arrintan way waalanaysaa may haba u sheegin adiga gabadhaas waa inaad dhowrtaa qalbigeeda filimkan waxaan wada ogahay si waxba ka ogeyn waxyaalaha abeed uu samaynayo muqdisho haa midaan xoogaho haa iyada macquul waay tan maya aniga kama helin maxaa dhacana maba ka helinba midaan aniga haa boolaan sida oo ma soo xasuusatana iganaaf ya qayba culay sheegta adigana fiir farant giriska sida u qurux badneed kaaga daranka sawirka meesha fiir saaxiibka sida uu taagan yahay caadi ma tiidaan ku dhaaq qofyay waa qurux badan taan ku dhaay markaan qofkaana yaa waay saaxiibkayga qaaliga aad ayaan uga helay yaaqi isdeji goordhow waad u tegaysaay waan u tegayaa yaaqi isaga nolosheeda waay mar waa u tegi doona mar oslaam habe wanaagsan xaaladda guriga soo kee maahan anaga guriga qolol walba kaamira ayaan ku xirnay waxaan kala socnaa bannaanka marka waxaa loo baahan yahay adiga inaad iska taxdirtaan gurigan wuxuu ku yaalaa meel duur ah waxbaa ka walwalin waad mahadsan tahay